بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا جانالka Baris Media qaar kamida xildhibaanada labada gole oo soo saaray war saxaafadeed ka dhan ah dawladda Soomaaliya hogaamiyaasha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda oo ka digay in la siyaasadeeyo hawada Soomaaliya kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada gole ayaa lagu qabtay guriga madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed xildhibaanada ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ka dhan ah dawladda Soomaaliya kulanka waxaa lagu falanqeeyay xaaladda siyaasadeed ee dalka marayo ayagoo ka soo saaray war saxaafadeed ka dhan ah dawladda Soomaaliya ee loo doortay sida ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka sidoo kale mudanayaashu waxay isla qireen in xukuumaddu ay ku guuldareysatay gudashada waajibaadkii loo igmaday oo ay ka mid yihiin amniga wadajirka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dib u heshiisiinta qabyatirka dastuurka hanaanka doorashooyinka dhamaystirka hay'adaha dastuuriga ah sida garsoorka iyo xuquuqul insaanka xildhibaanadu waxay cambaareynayaan ku tumashada sharciga ku tagrifalka awoodda dawladnimada cunaqabataynta shacabka Soomaaliyeed caburinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee qaranka xildhibaanadu waxay si gaar ah cod dheer ugu cambaareynayaan xayiraadda lagu soo rogay shacabka ku nool maamul goboleedka Jubbaland waxayna ka digayaan in cunaqabataynta iyo waxyeelada shacabka loo adeegsado ciidamada qalabka sida ee qaranka iyo hay'adaha dawliga ah sida hay'adda duulista hawada iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xildhibaanadu waxay si adag uga digayaan haddii ay sii socdaan arrimaha kor ku xusan inuu khatar geli karo hanaanka dawladnimada iyo masiirka qaranku xildhibaanadu waxay ku baaqayaan in xubnaha labada gole ee baarlamaanka ay gutaan xilka ummaddu u igmatay ee ay u dhaarteen haddii kale ay talada ku soo celiyaan shacabkii doortay in loo saaro guddi ka kooban labada gole oo baaritaan ku sameeya waxyeeladii bani'aadanimo ee ka dhalatay cunaqabatayntii la saaray shacabka Jubbaland in si shuruud la'aan ah loo qaado xayiraadda iyo ciqaab wadareedka la saaray shacabka Jubbaland in xuquuqda iyo maamuuska ay leeyihiin madaxdii hore ee qaranka soo martay ay tahay lagu xadgudbaan in shacabka ku nool gobolka Banaadir jidadka loo furo si ay noloshooda u raadsadaan gabagabadiina xildhibaanadu waxay soo jeedinayaan in xalinta khilaafaadka ragaadiyay dalka iyo taabagelinta geedi socodka dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya tala qaran oo loo dhan yahay laga yeesho shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen hogaamiyaasha xisbiyada midowga nabadda iyo dimuqraadiyadda ayay ku sheegeen in aan la siyaasadeen hawada Soomaaliya ayagoo dhanka kale ku amaanay Soomaaliya in ay la soo wareegtay maamulka hawada Soomaaliya maxkamadda dambi ugu weys marka haddii walaalkay xoogo yar oo arinta comment gareeyay wax intuu jooga jiray ahayd laakiin waxaan ku faraxsanahay ma ahayn haddana kuma faraxsan qof Soomaaliya in la caburiyo mana taageerin qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay wadanka meesha uu doono inuu duulo meesha uu doono inuu ka dego dastuurka waa asaasi laakiin marnaba national interest-ga ka weyn wax kasta wixii dawladdu markaa ay dawladda iyo dadku ma dagaalami karaan haday dagaalami karaan markii sharci darrada la igu xiray oo tumajal 4 bilood maxkamad laan oo xabsiga ku jiray BST ayaanu dhilahay wariyaa tolay ama xataa waa tunsantiin qoryo waasta aniga u dhigay waagana xataa waasta haddii qofka xanaga qora qaadana markaasan qaada lahayn ma xanaaqaynay hal saxan laana wixii khaldan oo jira haddii qodobka 22aad iyo 20aad iyo 18aad madaxweyne xasan shalow uu akhriyay annaga waxaan akhrinaynaa 4 sano oo isagu jooga in la madaxweynuhu dastuurka ilaal qodobka 20aad akhri kan 18aad akhri kan 22aad akhri waxaan xusuustaa maalin baan gudoomiye Jawaari ugu tagnay anagoo axsaaba markaasaan su'aal waxaan weydiiyay gudoomiye Jawaari dastuurkan yaray horta wadanka midka lagu maamulaa kanaan haysanaa ma mid kala jira ilaa kan waxna la ku xiri karaahay
haddaan fikirkeena sheegno kuma yaalaane gudoomiye uma dastuur kale oo moognaha jira wax badan oo moogtaa jira ugu gudoomiye Jawaari waxaan moogaa in asagaaba ku baxa marka dambe laftirkiisu waa loo adeegsaday marka dastuurka la wada ilaaliyo madaxweynuhu shalay markaad joogtana anagu ilaali baan ku dhahaynay haddana la wada ilaaliyo waxaan rabaa arrinta kiiska Kismaayo waa dhul Soomaaliyeed maamul Soomaaliyeed aad joogay hadda waxa isku haysta iyadoo dhul Soomaaliyeed waxa isku haysta saddex nimo ilmaadeera yaa isku haysta waa dhul Soomaaliyeed ogow waxaan leenahay hal xalliyo barnaamijka Kismaayo qof gaar oo quseeya ma jirto dawladdu haddii xal karta xal dadka nabadoonnada iyo dadka Soomaaliyeed sharafka leh ee wax laga maqlayaa intay tagaan maamulkaas inaanu dib u noqon oo aanu burburin xal ka gaaraan dawladdu haddii wax xirto oo airport xirto annaga ibn xir jirta tii ka horeys annaga waxba ka hadlay haddii marka dan u aragto waxay la tahay mandate-ka waxa iskala dawladda waa lagu dhaliilayaa dabcan waxay halayso waa saxanta malihi waxay halayso waa lagu xisaabtamaa laakiin maxay u sameyn kartaa qof dhig kartaa ma jirto amba kula dagaalami kartaa waxa kale oo rabaa kelmad oo waxaan soo marnay waxaan joognaa hotel 2 milyan ganacsi Soomaaliyeed ku maal gashay meeshaan hadda aan joogno fadhinaa waxaan xusuustaa iyadoo qashin qob ah xaqiiqatan maanta hotel 5 milyan si aad u hesho warbixinada wararka Baris Media fadlan subscribe saar mahadsanid